بارك الله فيك وبارك عليك وجزاكم الله خيرا. سؤال كله الدكتور كان يديننا waxa ay tahay waxa uu leeyahay qofka saa'ilka ahi hadii aad tihiin culimada Puntland waxaad la jirtaan dawladda Sheekh Shariif arta ka warmaanaha. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت waxay ku mahmaahdaa والدعاوي إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. قرآن كان أقول قل هاتوا برهانكم برهانتنا الشيقة يحجدين ارتمدوا أنه دولة شريف وزيرنا كمنه كل بنت هكا فريضة وهذا عدو شيدان برلمان كانوا كم تشرنوا لعقنا الله مصدر وهذا وإذا حيل طلاقنا انت هورتا اوغادا او انت هورتا كورقبا maxaa marka arinkaas loo soo celceliyaa waxa dhici karta rag qaarkood inayna aragba oo hadda aniga idin hor fadhiya inkastoo rag leh aan maqlay oo la ii sheegay ma maqlay waxa lagu qaaday taangi airportka intii laga qaaday baa waxa la geeyay fila Soomaaliya inkastoo warka maqlay laakiin runtii fila Soomaaliya waligeey ma tagin waaga hore iyo hadda midna ma ana tagin xaajigaas hadda Sheekh Shariif li hadana wali ma arag inaan TV ka arka maahane horta taas waa ina taa horta ogaataan laakiin hal baa jirta waxa jira waxa weeye waxyaalaha dhacaya ama Soomaaliya ka dhacaya qofka hadii aadan ku waafaqin soo u arko wuxuu isku dayayaa misdaaqiyada inuu baabiyo oo ku jaa'ifeeyo oo aragti waxa socota la yiraahdo hadaan aniga ila jirin alba ila tahay waa aragtidii Bosch oo waagi bilaabay hadaan aniga dhinacayga ahayn uga soo horjeeda warkaasna sax maahan anuu cid aanu la jirno hadii hadda la fiiriyo qolooyinka ishayana waxa dhigi karta qolada xagga ka soo jeeda in raggu inta badan ay raga ay zumala ahaayeen oo waqti badan ay soo wada noolaayeen inay jirto waa marka runta loo hadlo rag baa dhowr iyo 30 sano saaxiib la ahaa darafka kala ah cid marka meel loogu xiran yahay ma jirto xaqa ayaa wuxuu yahay in la raaca wixii markaas u muuqda khalad inay tahayna in la sheego weey dad bay arrinkaas inay ka farxinayn dad baa arrinka ka soo horjeesanaya dad baa si kale u arka laakiin dhib ma leh waxa dhici karta maanta inuu saa u arko laakiin birito uu ogaado markii la iswatay oo maxaan ku iraahdaa maxaakim la wada ahaa waa la iswatay anagu nasaaix baan u jeedinaa waxaan u maraynayaa rag halkan fadhiya waa dadka ugu horeeyay oo nasiixo u jeediya maxaakimta tala u jeediya waxaan isleenahay tada saaib ay ahay markii maanta la fiiriyo wixii la soo maray tala saaib ay ahay markii dambe oo wadanka amxaaradu soo gashay laftigeeda talooyin baa la jeediyay wali waxaan u haysanaa inay saaib ahay markii dambe oo la iskhilaafay laftigeeda talooyin baa la jeediyay waan isleenahay saaib bay ahayd ilaa hadda marka la fiiriyo taariikhdu soo socoto waxaas oo dhan hadda marxala la galay oo waxa weeye raggii iswatay baa iskhilaafay anagu markaas rag isku duuban oo waxay ahaayeen daraf ah oo aanu leenahay warsaa iyo saa yeela hadda markii la isqabtayna hada waxa weeye in la seexa iyo la dhaxgalo oo la yahay walaalow saa isa hal yeelo ayaa sharcigu keenaya laakiin qofkaan nooc ilana qofkaan anugu caayilay qofkaan anugu xukuma ila xukum horta wax rag la yiraahdo maaha iska daa wax culimo la yiraahdo wax rag la yiraahdo ma ahan wax culimo la yiraahdo maaha saadarteed marka anagu cidna lama jirno laakiin waxaan la jirnaa maslaxada ummadatan waxaan la jirnaa maslaxada shacabka kan dan khaas oo aan ilaashanayna ma jirto xukum raadinayno inaan meeshaas dana ka helno
oo aanu madax ka noqono ma rabno nin intayadaas sharaxaya nuguma jiro xataa baarlamaan xataa dawlad midna nuguma jiro ma garata maxaan ku idhaha nafac kaloo aan ka rabnaana ma jirto laakiin war ummaddatan dhibaataysan oo baaba'day oo 20 sano dagaalka ku jirtay oo gaalo u gashay oo hijroonaysa oo badda ku dhammaanaysa oo baddan kale ku dhammaanaysa oo saxrahan ku dhammaanaysa oo maxaan ku idhaahdaa hay-aduhu xukumaan oo gaalada dhulkeeda inay qaybsato ay rabto war wadcigaasi miyaynan lahan iyo naxdin ku keenahay nin kasta oo damiir leh oo muslim ah oo waddanka ka naxaya miyaan ma'aalaadka umuurta iyo arrintu siday ku dhammaato aynan muctabar sharcan ahayn miyaan loo jeedin siday wax u socdaan yaa baaba'ahay yaa dhimanaya yaa khasaaruhu gaarayaan yaa dhibaatadu ku socotaa soo soomaali maaha ninkii marka yidhaahda war ka daaya war saa sax maahan war corka waraf ma lagu dayey war tale kale ma la keeni karaa war maanta ma la heli karaa ummad isku duuban war ma la liqi karaa shar ilaa waxa weeye ninka faqiihahay waa ninka laba shar kala doorta oo sharka yar iyo sharka weyn kala dooran kara war taa ma la heli karaa qofka yidhaahda in la yidhaahdo intaasoo tootirood buu leeyahay oo anaa arkay isagoo rixabahayo oo anaa arkay isagoo maarat in la yidhaahdo ma qabata arrinkaa laakiin waxaan idiin sheegayaa qofku haddii uu wax dan ah uuna lahayn inuu waxaa dhabarka u godo maaha waxaasi si kasta laysku dacaadeeyo waxaas dhabarka loo godi maayo xaquna haddee ilaahay baa markhaati ka ah idinkuna markhaati baa ka tihiin ajyaasha soo socotaana kelmadaha kan dhegaysanaysaana litaariikh markhaati bay ka noqon doontaa wadciga hadda maanta soomaaliya ku jirto inqaad buu u baahan yahay haddii markana laka rabo inaan waxaataan ka aamusno oo aanu ayrogabana maxaan ku idhaahdaa ka baqno hadda arrinkaasina arrin fulinimo awey walacada waa ogtihiinoo mararka qaarkood in warkaa la yidhaahdaa tabankiisu rakiis ma ahan wa aradtumuunii an akuuna mudallisan hayhaata hayri aahara tadliisa yani waxa weeye in waxaa la qariyo maaha sax maaha ma garatay sax maahan ummadda eed baa laga gelayaa annaguna naftiga eed baan ka gelaynaa ma garatay sharcigana eed baan ka gelaynaa waa inaanu idhahna waxaasaa saxa waxaasaa khaldan bini aadan baan nahay waa ijtihaadi karnaa ijtihaadka waa ijtihaad waa laga hor keeni karaa xujo waa la keeni karaa laakiin in laisdhaleeceeyo oo in laisdicaadeeyo wax macnaa kuma fadhido waxaan xusuustaa ninka la yidhahda abu cabdiraxmaan ibni caqiil daahiri waa nin sacuudiyaho shaykhahoo wuxuu leeyahay kutub tiro badan laakiin waa daahiri wuxuu leeyahay laba guri oo waaweyn buu riwaad ku leeyahay waxa la yidhahda daarat ibni xasm iyo daarat daawuud ayaa lagu kala magacaabay laba cimaaradood weeye ninkaasaa wuxuu yidhi afkaar buu mucayana ayuu qabay oo aaraa'aho culummadu marka ay ku diidanayn wuxuu inuu masaajid ku tukanahaya oo qur-aan akhrisanahaya oo duhur la sugahayo baa wiil dhallinyarahoo wadaadihii isoo ag fariista markaasuu wuxuu yidhi sheikh ninkaa ma ujeedaa salaada tukanahaya abu cabdiraxmaan ibn caqiil daahiri baa la yidhaahdaa kaana daallan nin muxuu ahaa daal ahoo maarata khriban laakiin hadda u jeedaayo isaga dadka la tukanaya oo fiican anigiibu igu xamanahayaa ninka uu sheegayana waa isaga ninka uu leeyahay maxaan ku idhaahdaa waa abu cabdiraxmaan ibn caqiil daahiri marka waxyaalahaas iyo waxyaalo la mida in dhabarka loo godo midda labaadna ninka wax naqdinaya oo awdaac tasxiixinaya aniga yaan lay maagin hadduu yidhaahdo waa gardaran yahay oo culimmadu waxay odhan jireen man jara dayla annaasi jura daylu ma garatay in anta naqadta annaasa naqaduuk dadka haddaad ku naqdinayaan marka haddaad tidhaahdid yani far laysaanin oo yaan lay magaciisinin haddaan qola oranin waxaanu aragnay ayaga oo maxaan ku idhahdaa amison baa mushaar u soo dirta haddaana la oranin waa fiicannahay weli waa fiicanna ma garatay marka ilaahay ha laga cabsado waxaasi wax macnaha kuma fadhiyaan waxaa laa yasixu ila asaxiix fi nihaaya waxaa dhici karta in ay qaadato sanawaat inay qaato waa dhici kartaa laakiin fi nihaaya waxa saxda keliya unbaa sax noqonaya intaasaanay ku kalsoonahay midda labaad haddaanu dadkan la tacaamulana ay yihiin ashkhaas waa biqi lahayn laakiin hadda ilaahay baa waxa kan nagu addoonsaday latubayinunahu linnaas walaa taktumuuna inaan la qarinin marka qof kasta wuxuu raba ha yidhaahdo wuxuu rabo ha ku hadlo ilaahay miyaa adigu furaha jannada miyaad haysaa ma garatay ilaahay baa dadka addooma loo yahay ilaahay baana dadka khalaa'iqda u kala garsoori doonaa
intaasaa kalsooni iyo nabadgelyo ku filan. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.